waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo Zainab Cali soo laabtay. Fadlan daa igu cusub tahay maxaa kaa codsanaynaa subscribe, like, share ii saartid. Fadlan maanta maxaa sameysanaynaa gacmaha ka shaqeynaynaa, gacmaheena dhaqanaynaa si fudud, alaab dabiici ah, jikadaada laga weyneynin, waqti yar kaa qaadanayso, kaala aragna kaa dhigayso. meesha maxaa ku haystaa xabad liin dhanaan, sokor, nice cafe mise qaxwo alla qaxwada haysatid, saliid zaytuun, qaxwada maxaa waaye 2 qaado, sokortan maxaa waaye 2 qaado iyo xabad liin dhanaan. xabad liin dhanaan kulligeed waa ku miire. ana maanta liin yaraa haysta, liinta maxaa la rabaa inay weynaato, xabad fuul ah aa ku darsatid. saliidan waxaa waaye saliid zaytuun, bad saliida la saliida haystida isticmaalaya, qumbe, saliid avocado, waxaa la wixii guriga ku yaal isticmaale. sokortan maxaa fiican sokorta brownka, bad ani maanta maxaa haystaa sokorta cadaanta ah. bun hadaala waa bedelkiisa la helaa, soo waxaa haysatid wax ka dhigo, qasab ma ahan waxaas inaa isticmaashid. garaafaasna maxaa ugu jira biyo qandac fiican oo diiran, biyaha zaaid iyo kaaga kulaanin, yeena ay qaboonaya kaa noqonin. waa kaas xabad qaado oo saliida kusoo shubay. midaan waa step 2, waa iska sii diyaarsanaynaa. markaa walaaqatid wax walba isku dadartid, geesaa iska dhige. step 1 harte shaambada horaani tusaaya maxaa waaye body wash. qof walbo shaambadoo haysto isticmaala, waxaa jirka ku dhaqatid. meesha waxaa ku diyaarsade bahasha lagu qabeysto, wax alla waxaa haystid ku qabeysatid. wax muhiimada maxaa waaye oo isku dhaqaysid, isku scrub gareynaysid. biyo yar oo qandaca ku darsade. shaambadani sheegaya waa taas. body washkan maxaa waaye babaya laga sameeyay, scrub ahaan camal waaye, asidhan kuskuusa ku jiro, kaala arag sa ujeedin. waa kaas carafna waaye, wasaqdan si fiican ay kaaga saare. ana maanta cilaana ii marsanaa, cilaanka iga baxaay sa ujeedin, harhara igu hare. soo maxaa rabaa harharkaas inaa iska nadiifiyo. qurux cilaanka markaa marsatidna qurux waaye, markuu kaa baxayan qaab daro fool xumo. soo waa kaas baking soda kusoo darsanay qiyaas ahaan 1 qaado. gacmahada ku ruganay, gacmaha zaaid naxariis daraha u rugin, tartiib simple ah, naxariis ku jirto. calaa gacantii maxaa siinay 5 daqiiqo inaa rugtida laga rabaa. madmadow baashaana waxay u fiican tahay dadka oo maanta dhan biyaha ku jiraan, alaabta dhaqaayaan, dharka dhaqaayaan. hooyo hadaa guri joogtid biyo lagama weynaayo. soo gacmaha dhan khallif jaajac ay ku noqonayaan, soft iyo maxay ku noqonayaan moisturizer fiican, sababtoo saliida ku jirto. qaxwadan gacmaha maanta dhan markay shaqeynayaan duqduq camal ay noqonaya, duqnimadaas ay ka saaree. gacmaha lugaha lagu dhaqdaa, dead skinka dhan in kaa qaade. soo calaa gacantii 5 daqiiqo camal aa ruge. meesha madmadow ku qabtid, faraha, meel walbo si fiican calaa gacantii 5 daqiiqo. waqti badan kaama qaadanayso. alaabta isticmaalaysid alaab qaali ma aho, alaab maxaa iska simple gurigaada taalo. baking sodagaas isticmaalo maxaa waaye midka keega iyo waxaas lagu darsado. midaa jirto oo nadaafada bis loogu talgalo oo cuntada lagu darsanaynin, bad maanta midka guriga iyaal maxaa midka keega lagu darsado, kaala arag asigana waaye. soo si fiican u ruganay gacmahaada oo naxariis ku jirto. cilaanka waa aamin, waa cilaanka soo laa igaga bixiye. soo isbuuci 2 jeer hadaa dhaqatid, you're good to go. kaas fadlan ay ilooyina subscribe ii saartid, asxaabtaadan u share garee, like-tan ha iga baqiilin. faraha dhexdoodan waa inaa rugtid tartiibka. biyaha qandacgan way kusii caawinayna wasaqda iyo dead skinka dhan kaa soo saarto. ayadan biyaha qandac, biyo kuleel zaaid ku gubayaan ha isticmaalin, biyo qandac xoogaa fiican. kaas gacmaha soo dhaqada, ujeedin cilaanka soo egaga baxe, kaala arag maasha allah. gacantaana igu darneed, wax yara beenaa kasoo harte. kaas step 1 waaye. meeshaas dirac soo fidsade, sababtoo qaxwada miiskan uu cadiya, qaxwada iga haleynee. qaxwada waa kaas iyadoo kaala arag gacmahaada marsanee, waa ku scrub gareynee si fiican.
ayada dhankaala arag zaaid ma u dhegdhegayso sababtoo saliida ku jirto. muhiimada saliida waxaa waaye intay jirka dhan kuu qurxiso jilaaca kaa dhigto. soo haddan kana kuruge waa step 2. soo muujeedin si u fudud wax badanna kaama baahno. qaxwada marna cab marna jirka ku qurxso. soo waa kaas gacantaa si fiican u marine den gacanta kala marsane. maxaa la rabaa inaad ku joogtid 10 daqiiqo. markaasaa iska dhaqay 10 daqiiqo inay hoosha liintana wixii skiinka dhan wasaqda way kaa qaadeen. ayadan jaamska dhan ay dilee maqaarka dilmada dhan ay ka qaadee. kaala arag gacan walba 5 daqiiqo meelaasaa marine aa ku scrub gareyne. gacanta kale haddana marine saas den labada gacan 10 daqiiqo camal aa u kaadine inay si fiican markaa iska raacinaysin. hadaba inaan ii sheego markaa raacsanaysin biyo qabow ha ku raacinin. biyahaada qandacaga ku diyaarsanaa ku dhaqane. halkaas ujeedin si fiican oo soo marsanina 10 daqiiqo suuge markaas isku soo laabanina anagoo soo farxalane. waa kaas asxaabta isku soo laabanay gacmaha waa soo dhaqana ka sheekay cilaankii igu harhara wax yar oo been ah gacantaana u darneed waatan ayadan wax yariis oo been soo had maxaa isticmaalaa kareemkan bad adig kareemka isticmaashid markaa qabaysta jirkaada u isticmaashida marsane. ani kareemkaas isticmaala soo gacmaha hadda muhiim waa inaad kareem marsatid ha dhaqin ha ka dhaqaajinin because gacmaha xoqtaan badan ay soo mareen qaxwaa ku xoqtee shaambaa ku soo xoqtay. soo waa inaa haddan kareemka aa marisid kaala arag kareemka markaa marisid jilaaca kaala arag adaa isku bogbogay sidaa ku dhehe qof makuu habeenin adaa gurigaada ku samaysatay. mar walbo hadaa gurigaada wax ku samaysatid oo ogtahay waxaa ku samaysatid just waa iska farxee niyaddaa ka farxee because qarashkaaga ma bixin qof kale kuma dhaqin adaa samaysatay. you just feel proud of yourself. waa kaas hadda wax